السلام عليكم waxaan sharaxaynaa maanta film Korean action ah oo lagu magacaabo The Emperor. Filmkan wuxuu ku saabsan yahay ciyaaryahan hore oo kubadda kolayga ah kaasoo hadda deen aruuriye ka ah shirkad weyn oo uu leeyahay madaxweyne maafiya. U shaqaynta maafiyada waxay leedahay khatar iyo walaac badan, laakiin wuxuu goobta shaqada kula kulmayaa haweeney quruxdeeda oo la ina darandarayo maalin maalmaha kamid ah. Inantaas si lama filaan ah ayuu u waayay. Waxa uu ka shakinayaa in booskiisa ku lug leeyahay maqnaanteeda. Ma suurtagal baa inuu soo helo haweeneydaas? Ma booskiisa ayaa ka dambeeyay waayitaankeeda? Aan ogaano. kani waa Hawan, ciyaaryahan weyn oo kubadda kolayga ah kaasoo wargeysada ciwaanadooda ku qabsan jiray bandhigidiisa cajiibka ah, laakiin kulamadiisii ugu dambeeyay waxa uu sameeyay qaladaad badan kuwaasoo sabab u noqday in kooxdiisa ay weysay hoggaan ay dhibco badan ku haysay. taa beddelkeedna ay u laabteen heerka labaad. saaxiibadiisa, macallimiintiisa iyo taageerayaashiisa aad bay uga niyad jabeen. sida muuqata Hawan wuxuu si ula kaca ugu ciyaaray qaab xun si uu u helo lacag aad u badan. tababarihiisa ayaa ahaa kii ku casuumay inuu ka qayb qaato ciyaar qorsheysan. nasiib darro, tababarihiisa kaliya waxa uu siiyay lacag yar. dabcan Hawan kuma qanacsaneen ficilkaas uu sameynayay. isla markiiba waxa imaaday ciidan booliis ah oo weerar ku soo qaaday kulankan. Hawan iyo qof kasta oo halkan ku sugan waa la xiray waxaana loo diray xabsiga. Hawan waayihiisa ciyaaraha way soo dhamaadeen iyadoo dadka ay ku majaajiloonayaan. dhowr maalmood kadib waxa si lama filaan ah u sii daayay qareen uusan xitaa garanayn. Hawan wax badan ma weydiin ninkaas. waxa uu iskaga soo baxay xabsiga oo waxa uu soo aaday xarunta deenbixinta si uu u soo ceshto lacagtiisa. waxa uu la kowsanayaa xilli nin koox maafiya ay ku dhex tumayaan goobtan kaasoo bixin waayay deen hore loo siiyay. magaca hogaamiyahan waa Kiinsu. Hawan oo si lama filaan ah u yimid asluub la'aan ayaa ka xanaajinaya Kiinsu oo doonaya inuu siiyo xoogaa cashiro ah, laakiin Hawan beerka ayuu ka tumayaa isaga iyo ilaaladiisaba. maalinta xigto Hawan wuxuu ogaanayaa in Kiinsu uu yahay kii ka caawiyay inuu xabsiga ka soo baxo. waxa uu kaga cudur daaranayaa Kiinsu garaacista. Kiinsu uu iska cafinaya, balse Hawan waxa uu ku qasban yahay inuu magdhow ka bixiyo garaacidii uu geystay. dabcan Hawan ma haysta lacag ku filan. markii Hawan uu qolka kasii baxayay waxay isdhaafayaan madaxa maafiyada weyn Sanha oo hogaamiya shirkad weyn oo deynta bixiso oo lagu magacaabo Emperor Capital. Sanha uu yaqaana Hawan inkastoo Hawan uunan weli garanaynin, sababtoo ah wuxuu ahaa kii amray Kiinsu inuu ka sii daayo xabsiga. Hawan oo aan waxba haysan ayaa go'aansanaya inuu seexdo garoonka kubadda kolayga. Sanha ayaa nimankan u soo diray isagoo raba inuu la hadlo oo uu siiyo fursad uu ugu shaqeeyo deen aruuriye ahaan. Hawan isla markiiba ma aqbalayo dalabkan, laakiin Sanha wuxuu xasuusinayaa inuu bixiyo magdhowga garaacista Kiinsu. Hawan ma lahan doorasho. hawshii ugu horeysay ayaa loo dirayaa iyadoo Rock Flash uu yahay kaasoo ahaa tuug hore oo shaqadiisu haddu ay tahay kulun iibiye. howlgalka deynta looga soo qaadayo ayuu qayb ka yahay Hawan maanta, maadaama maalintii ugu horeysay ay tahana Kiinsu ayaa kala tusinaya qaabka hawsha loo qabto. 3 nin ayaa loo diray Rock Flash oo kooxdan ka tirsan si ay deynta uga soo qaadaan, wayna ku guuldareysanayaan kadib gacan ka hadal dhexmaraya iyaga iyo Rock Flash uu ka adkaanayo. Hawan ayaa ugu dambeyn soo dhexgalayo. inkastoo Rock Flash uu yahay nin xajmi ahaan ka weyn Hawan, haddana Hawan wuxuu ku guuleysanayaa inuu garaaco Rock Flash oo ku soo aruuriyo deynta. soo koobo maalintan Hawan wuxuu ka badbaaday cadadii booska kadib markii ay si guul ah u soo ururiyeen deynta. markay ku soo noqdaan Sanha ayaa abaalmarin ahaan Hawan u siinaya xoogaa lacag ah. si lama filaan ah ayuu Hawan u soo celiyay lacagtii isagoo dhahaya u qaata lacagtan magdhowga garaacidii Kiinsu. mana doonayo inaa idinla shaqeeyo ayuu ku leeyahay Sanha, laakiin Sanha wuxuu xasuusinayaa in xirfadiisa kubadda kolayga ay soo idlaatay, haddana uu siin karo lacag badan hadduu la shaqaysto. Hawan wuu fikirayaa ugu dambeyn wuxuu go'aansanayaa inuu ka sii shaqeeyo garabka Sanha. hogaamiyahan ayaa Hawan ku casuumaya baar ay ku caweeyaan caawa si ay ugu dabaaldegaan cutubkan cusub ee wada shaqaynta ay curtay. halkan wuxuu kula kulmayaa gabadhan quruxda badan oo aad arkayso uu aad uga helayo, magaceeduna yahay Sha. waxay ka agdhowdahay maafiyada madaxda waaweyn agtooda. quruxdeeda ayaa ka dhigtay in Hawan gebi ahaanba hoos ugu dhaco soo jiidashadeeda. Hawan wuxuu ku riyaaqay maalintii ugu horeysay isagoo deen aruuriye ah. ahna ma kala kulmin la qabsiga tan iyo markii uu Kiinsu kula taliyay sida uu ku noqon karo deen aruuriye wanaagsan. Sanha xitaa wuxuu siinayaa Hawan gaari Mercedes ah iyo waxyaabo kale si uu u ekaado qof kala kacsan. habeenada kamid ah wax aan la filin ayaa u imaada Hawan. waa Sha oo soo gaartay xaggiisa oo weydiisanaysa inay banaanka wada aadi karaan. dabcan Hawan fursadan ma doonayo inuu qasaariyo. maalinta xigto waxay soo aadeen webiga dhinaciisa si ay ugu soo socdaan. Hawan xaqiiqdii uu ku raaxaysanayaa waqtiga uu la qaadanayo qoftan. si walba ahaataba shay aan la mahdin ayaa dhacayo. nin oday ah ayaa soo ag istaagay Sha wuxuuna ku dhahayaa ereyo aan habooneen oo ku maagmaagayo. Hawan arintani ma cajab gelin, aad ayuu u carooday. ceeji ayuu dhabdhaha odayga. Sha ayaa si degdeg ah u kala celisay labadooda. waxay u muuqataa in dhacdadan aynan saameyn ku yeelan doonin maalintoodan, waayo weli farxad ayaa ka muuqanaysa wejiyadooda. kadib maalin daal u saaxiib ah Hawan wuxuu u raacayaa qolkeeda halkaas oo waqti qurux badan kula qaadanayo. Sanha ayaa maanta ku casuumay Hawan inuu la kulmo Han oo isna ka tirsan waaweynka maafiyada kaasoo uu aad u xushmeeyo. Han wuxuu noqonayaa ninkii Hawan uu soo ceejiyay markii uu Sha la socday. Hawan ayaa salaamaya isagoo aad u argagaxsan, waayo ma filan ninkuu ceejinayo inuu yahay boos weyn oo maafiyada ka tirsan. intaa kadib Han iyo Hawan waxay ka wada hadlayaan dhisidda dhismo cusub oo fadhiisan u noqon doonta shirkad
shirkadooda. dhanka kale hawan shaqada deen soo aruurinta aad ayuu ugu sii wacnaanayay maalin batan ku xigto mar walba howlgalladiisa wuxuu ku soo dhameynayay dhib la'aan iyadoo sanha uu ku faraxsan yahay bandhiga hawan sidaas oo ay tahay hawan mar walba wuxuu waqtiga la qaataa shaa 3 sano kadib xafiiska dhismihiisa waa la dhameeyay hawan iyo xubnaha kaleba waxay u soo wareegteen xafiiskan cusub sanha ayaa ugu yeeraya hawan xafiiskiisa iyadoo uu ogaay in xiriir qoto dheeraada la yeeshay shaa oo isaga iska haysan jiray awalkii hore booskana ma doonayo hawan inuu ku mashquulo inantan sidaa darteeda wuxuu ka codsaday inuu ka fogaado sanha wuxuu aaminsan yahay xiriirka inuu saameyn ku yeesho shaqada murugo ayuu dareemayaa hawan waayo booskiisa ayaa ka mamnuucay inuu u dhawaado shaa xitaa wuxuu ka baaqsaday mas-uuliyadiisa deen soo aruurinta ee maalintii xigtay dadkii la shaqaynayay ayaa ugu dacwooday arrintan sanha waxay doonayaan sanha inuu hawan shaqada ka ceeriyo laakiin isagu ma doonayo taa beddelkeeda inuu u digo ayuu go'aansaday sanha oo hogaamiye burcad ah ayaa haddana qaata go'aanadiisa gaarka ah oo talooyin badan kama dhagaysta la taliyaashiisa halka hawan isaga loo digay xitaa uu weli ka hari la'yahay shaa maanta shaa ayaa guriga ugu imaatay iyadoo ilmada ay ku qubanaysa hawan waxay u sheegaysaa in sanha iskaga haysto deen culus ay ka gashay shirkadiisa darteeda arrintan markuu ogaado hawan aad ayuu u murgooday wuxuuna u tegayaa sanha isagoo u sheegaya in deynta shaa uu bixinayo booska uu ka aqbalaya arrintaas degdeg la'aan sanha iyo han oo wada saaran gaari ayaa wadada loo gelayaa waxaa soo weerar maafi laga baqo oo caan ka ah kuuriya kaasoo sannado ka hor uu sanha xabsiga u diray isagoo sidaa u sameynaya inuu noqdo madaxa maafiyada uu ka warhaayay sanha in kuutar laga soo daaya xabsiga laakiin muunan filin in sidaas ugu dhaqsiyaha badan argudasho ku samayn doono nasiib wanaag raggii sanha ayaa goobta soo gaaray si ay uga badbaadiyaan arrintan iyadoo kuutarna uu meesha ka baxsaday maalinta xigto sanha wuxuu u imaaday qolka shaa isagoo u sheegaya inuu iskaga fogaato hawan sanha ma haysan dooq kale waayo hawan digniintii uu siiyey way u shaqayn weyde shaa waxay u baqaysaa badqabkeeda haddii ay diiday inay ka dheeraato hawan waxay go'aansatay inay iska qariso hawan kana fogaato markuu ogaado hawan inay maqan tahay inanta wuxuu ku fikirayaa sanha in arrintani ka dambeeyo xiriirka uu la leeyahana si hoose ayuu usii dhammaanayaa dhanka kale waxay aaminsan yihiin maafiyadan kuutar inuu ku yahay halis si ay meesha uga saaraanna waxay diyaarinayaan howlgal ay kusoo afjarayaan howlgalkan ayaa hogaaminaya hawan xagga guriga kuutar ayay ula socdaan iyagoo sita midiyo dabcan ilaalada joogta ayay qof uga tageen dagaalkan waa mid aan laga baxsan karin ilaalada kuutar ayaad moodaa inaysan u diyaarsanayn weerarkan halka hawanna uu ugaarsanayo keligiisa carfaanta kalena ay fiilooyinka korontada ay jarayaan kastoo ay baabi'iyeen cid walba oo halkan joogtay haddana kuutar maba ku sugna meeshan wuu iskaga baxsaday wuxuuna diyaarinayaa inuu aarguto markan wuxuu soo afduubtay sanha wuxuuna ku quflay meel qarsoon kiinsu wuxuu soo arkay meesha lagu hayo sanha wuxuuna si degdega taleefanka ugu sheegay hawan halka uu joogo sanha hawan degdeg ayuu ku yimid goobta wuxuuna rabaa inuu badbaadiyo booskiisa kuutar oo ka xogroon hawan uma sahlana inuu ka adkaado hawan oo la tumo bilowgii ayaa ugu dambeyn ka adkaada kuutar intaa kuma ekaan wuxuu u jarjaray cadcad hilibbihiisa dhammaadka filimka sanha iyo hawan ayaa dul saaran doon korkeeda iyagoo ku nasanaya fursaddan si uu sanha uga faa'iidaysta wuxuu uga sheekaynayaa hawan in maalin isagii ciidankiisa iyagoo ku guda jira howlgalkooda deen aruurinta meel ka mid ah deegaanka inuu la kulmay wiil geesi ah kaasoo la diriiray tiro ciidankiisa ka mid ah kuwaasoo ugu dambeyn ay garaaceen wuxuuna maalintaasi qorsheeyey in wiilkaasi marka uu soo weynaado ka dhigto garabkiisa midig wiilkaasoo goor dambe noqda ciyaaryahan kubadda kolayga ah